Assalaamu calaykum asxaabay kusoo dhawaada muuqaalkeena maanta waxaana kaga hadli doonaa waa sidee nolosha cirbixiyeenada hawada sare ku nool taasi oo ah mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag oo ay qabtaan bini'aadamka. Miyaad ahayd mid ku riyooda markii aad yareed inaad noqoto cirbixiyeen? Maanta waxaan kuu soo bandhigi doonaa oo aad arkaysaa qaabka nolol maalmeedka cirbixiyeenada hawada sare ku nool, kadibna si aan u aragno qaar ka mid ah aragtidiin. Maxay cunaan cirbixiyeenada? Waxay cunaan cirbixiyeenada cunooyinka sacadaysan oo la keediyey. Cunooyinkan ayaa waxay u cunaan waqtiyo go'an oo xadidan inta aysan halaabin, waxaana ay u sababtaa cunooyinka ay cunaan inay hoos u dhacdo miisaankooda mar walba oo ay safar hawada sare aadaan. Sidaas daraadeed, si tartiib ah ayay u horumartay cunooyinkan si loo diyaariyo liis cunooyin oo kala duwan. Laga bilaabo cunista kalluunka tuna ilaa dalagyada noocyadiis kala duwan iyo wixii la mid ah oo cunooyin ah oo ay suurtagal tahay ilaalinta heerkooda diirnaanta. Sidee u hurdaan cirbixiyeenada? Waa su'aal muhiim ah. Waa suurtagal inuu cirbixiyeen ku seexdo asigoo taagan, fadhiya ama jiifa, waxayna ahaadaan cirbixiyeenada kuwa dhex mushaaxa gudaha hawada ayagoo isku xira baco ka ilaaliya inay ku dirsadaan ama ku dhacaan alaabaha kale. Waxayna gashadaan dhagaha samiicado si ay isaga ilaaliyaan sawaxanka ka socda mashiinada iyo qalabyada gudaha dayax-gacmeedka ay ku dhex jiraan. Markii ay hurdayaan, waa inay garbahooda dhexgeliyaan bacda hurdada, taasi oo u suurtagelinaysa qofka inuu hurdo hawada asigoona dareemaya sidii oo kale inay kala go'an yihiin gacmihiis iyo lugihiis jirkiisa inta kale. Wuxuu soo qabtay cirbixiyeen u dhashay Midowgii Sofiyeetka asigoo mid ka mid ah gacmihiis uu kaga soo tagay dibadda bacda, wuxuuna u tiiriyey inay tahay wax cajiib ah oo ka ifaya dhinaciis, aad ayuuna ugu kacay arrinkaas. Qabayska iyo nadaafadda shakhsiga waa door kale oo muhiim ah nolosha. Qabayska iyo nadaafadda shakhsiga waa mid ka mid ah daalka ugu weyn nolol maalmeedka cirbixiyeenka. In lagu dhex qabaystaa hawada suurtagal ma ahan, taasi beddelkeed waxay iska dhaqaan oo keliya wejiga ayagoo ku dhaqda maro qoyan. Si ay u daryeelaan timahooda, waxay isticmaalaan shaambada waterless, taasi oo aan u baahnayn biyo, sidoo kalena aan dareensiinayn doonistii ay u qabeen biyo. Qaadista qashinka. Waxaan ula jeedaa kaadida iyo saxarada. Sidoo kale waa dhibaato weyn ayadoo ay ugu wacan tahay jiritaan la'aanta cufis jiidad. Cirbixiyeenadu waxay isticmaalaan mashiin suuli ah kaasi oo awood aad u weyn u leh soo jiidashada qashinka iyo inuu isugu kulmiyo meel ka hooseysa fadhiga suuliga. Waxayna isticmaalaan tubooyin markii ay doonayaan inay kaadiyaan iyo baco balaastig ah markii ay dhammaystaan xaajadood. Ciyaaraha iyo madadaalada. Waa suurtagal inay cirbixiyeenadu u qaataan waqtiyadooda sidii dhulka, wax akhrinta iyo dhegeysiga muusigada ama daawashada guudka hawada sare oo ay ka eegaan daaqadaha dayax-gacmeedka, iyo inay ka soo qaadaan sawirro ama ay daawadaan filmaan iyo inay la xiriiraan qoyskood. Dhammaan intaas way ku samayn karaan cirbixiyeenada hawada sare. Sidoo kale, aalamiitada ciyaarta waa arrin aad u muhiim ah marka la joogo hawada sare, wuxuuna u sababaa cirbixiyeenada waayitaanka cufis jiidad dhibaato. Sidaas daraadeed, aalamiitada ayaa u ah gaashaan lafahooda iyo inay is haystaan muruqyadooda halkii uu burbur ku imaan lahaa la'aanteed. Yaraanta adeegsiga aalamiito ayaa sababa wadna xanuunka iyo xirinka xididada dhiigga. Sidaas daraadeed, haddaba waa waajib ka hortag dhibaatooyinkan ayada oo la adeegsanayo ciyaar maalmeedka aalamiito. Halkaas ayaan kusoo afmeeraynaa barnaamijkeenii maanta aan kusoo qaadanay nolosha cirbixiyeenada, taasi oo ah mid ka mid ah shaqooyinka ugu adag oo ay qabtaan bini'aadamka. Wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh.